wasiirada wasaaradaha dastuurka madaxtooyada iyo qorsheynta Jubbaland ayaa maanta kulan la qaatay xubno ka socday hay'adaha deeqaha bixiya kuwaas oo qayb ka ahaa safarkii safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya oo maanta ku yimi magaalada Kismaayo. kulanka mas'uuliyiinta oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa waxa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaana lagu lafaguray sidii mashaariic horumarineed looga fulin lahaa dawlad goboleedka Jubbaland. wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee dawlad goboleedka Jubbaland Aadan Ibraahim Awxirsi ayaa markii uu soo idlaaday kulanka waxa uu warbaahinta Jubbaland TV uga warbixiyay waxyaabaha looga wada hadlay kulanka isagoona xusay in ay isku afgarteen dhammaan qodobadii ay ka wada hadleen. wax waliba caadi waxyaabaha aan ka wada hadlay waxay kamid ahayd waxyaabaha aan hadduu Ilaahay idmaayo u baahannahay in nala ka caawiyo iyo sida aan u aragno guud ahaan baarinta Soomaaliya iyo ka mahad celinaynay waxyaabaha ay nala garab taagan tahay dawladda boqortooyada Ingiriiska oo talada iyo deeqdaba leh. waxaan xusnay shirka intuu socday taariikhda isku qasan dheer ka dhaxaysa dawlad goboleedan Jubbaland iyo boqortooyada Ingiriiska oo waqti dheer Soomaaliya siyaabo kala duwan ugu wareeganaysay iyo geeskan Afrikaba. waxaanu isla fahamnay in shaqayntii la sii wado oo dawladda Soomaaliya dabcan iyagu la shaqeeyaan laakiin inagu qayb dawladda Soomaaliya kamid ahaanay oo maxaa la yiraahdaa dawladda Soomaaliya qayb weyn oo muhiim ah oo kamid ahaanay. marka waan uga warbixinay mashaariicda socota iyo sida lagu hagaajin karo lagu sii wanaajin karo iyo kuwa loo baahan yahay in hadda dib loo bilaabo. intaasi kadib xubnaha deeq-bixiyaasha iyo safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya ayaa kulan albaabadu u xiran yihiin la qaatay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland. kulanka oo socday muddo saacad ah ayaa looga hadlay waxqabadka guddiga doorashooyinka iyo sida ay ugu socdaan howlahooda maadaama uu dhow yahay xilliga loo ballansan yahay doorashooyinka Jubbaland. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dawlad goboleedka Jubbaland Xamsi Cabdi Barre oo markii uu soo idlaaday kulanka warbaahinta uga warbixiyay natiijada kulanka ayaa sheegay in shaqada guddiga doorashadu ay wafdiga u bandhigeen qaabka ay u wajahayaan doorashada isla markaana isla qaateen. waxaan maanta aan la yeelanay kulan wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Mr. Ben. waxaan ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka soo socda ee Jubbaland processka. waxay naga weydiiyeen waxyaabaha ilaa hadda aan qabanay iyo waxyaabaha na sugaya. waxaan u cadaynay runtii in aanu mar walbana sheegaynay ilaa haddana aanu diyaar u nahay inaan qabanno doorasho xor iyo xalaala oo isugu jirta tii xulitaanka baarlamaanka iyo tii maxaan ku dhahaa madaxweynaha. haddii Ilaahay yiraahdana 3 bilood soo socota ayaan ku qaban doonaa ma dib dhacayso. annaga taas ayaan u adkaynay taas ayaan hoosta ka xariiqnay. runtii waan isla fahamnay waan isla garanay su'aalo badan bay naga weydiiyeen arrimaha processka ku saabsan. waxay wax naga weydiiyeen arrimaha la sheegayo ama sida xeerka uu qorayo oo ah in 3 qof loo soo gudbin doono oo odayaashu u soo gudbin doonaan guddiga deedna ay mid kasi ay dooranayaan. runtii waxaan rabaa arrintaa inaan hoosta ka xariiqo. dad fara badan oo hadlayana waan dhageysanayay odayaasha qaarkood oo runtii hadlayayna waan dhageysanayay. waxaan rabaa inaan u sheego 2 arrimood. kow midda koobaad waxaa weeye 3 qof odayga keenaya annagu ma keenayno beeshiisu ka keenaya. hadduu hal ka keeno iyo hadduu 10 ka keeno iyo hadduu 50 ka keeno iyo hadduu 2 ka keeno iyo hadduu 3 ka keenaba waa wax asaga ka soo go'ay asaga oo la tashanaya nabadoonadiisa. asaga ayay ka soo go'day asaga ayaa soo xushay asaga ayaa soo doortay. cid ku qasabtay ma jirto. cid influence ku sameynaysa oo hebel keen iyo hebel keen iyo hebel keen oranaysa ma jirto. especially guddigu wax shaqo uu ku leeyahay xataa haddii uu wiilkiisa iyo gabadhiisa iyo xaaskiisa noo keeno annaga waxaa weeye shaqo kuma lihin waa dadku keenay. criteria-dan u dhibnay aan ka fiirinaynaa criteria-daas ma leeyihiin dadkaas mise ma laha. marka odayga asaga ayaa awoodda u leh asaga ayaa isagoo la tashanaya nabadoonadiisa maxaan ku dhahaa ay go'aankaas iska leh. saa darteed 3 uu soo gudbiyo waxay ka dhigan tahay 3daas qof oo reerkayga ah
oo aan mid kasta raalli ka ahay oo aan reerkayga oo kumanaan qof ka soo xushay ya saddexdaas qof mid inta saddexdaba raalli baan ku hayaa kaad rabtiin ka qaata way horta meesha waxa way odayaasha awood ayagu leeyihiin oo la qaadayo ma jirto tana awooda tan kale midda waa awoodoodi xasan yuusuf maxamed shafadiyare raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada Kismaayo.